يعني نوبري واقاس إنكو نوضعنا صدح نعمضان ونبي مشاهد غفر نوى بريستي نعمد يأذنك تعالي وأن قفك سووها يستطيع النبي عليه الصلاة والسلام نبض قلب يعافمات قلب يقوت اليوم صدح لا نعمضان وصدح نعمضان وآذوا وإنويان أمني يا أرزاق يا عافمات صدح لا مضتك أنت بدن ولو بريستان لكن أنت شاكرين إلهي أمها نقيس أيايا وقليل من عبادي الشكور بإلهي أضمها إلى أنت إما نقيس يشكر إيسان ويرتهي بإلهي لأن الشكر هو عباده ويان وعباده وبعضه شاكر وصنقنا كافر ونقل شكر هنا نعمة أن يسنى وأيضا بيريا الشكر قيد للموجود وطلب للمفقود نمضى بحير هذا مهنقه مركا ضف إلهي وكل شكر يوم نعمة أوها يستوضاس ويقول إلهي أبورين مهنقه نعمة أنت أوها يستنى وأنجو تايو كانت تكتب إلى أنت كم بقنا وأنتم هذا marka ilaahay baan ku xamdinaynaa inagoo nabad qabna masaajidka aynu kula siiyey runtii xilliga ballanka laynii qabtay waa xilli iska adag maadaama aad haweenaa tihiin shaqada ugu badan ee aqalka taalana xilligay jirta weeyaan xilligan marka hadafkaan u kulanayna waxa weeyaan waa baraarujin بني آدمك إلا وشيء سابقا إلا حسوسية مر والبوضوء بحيان عندكم حسوس السنة وضوء حنتها هيا للصلاة أدب باكه الرأي آذانك سواح وبراروجين ويان وحسوس لولايا هي حان وقت الصلاة صلاة حل قريبا نواتين شغلك أدكو تكسر دحبحو صلاة إلهي وصو تفرق masaajidkii haddana dadku markay soo wada galaan ee aqiim ku dhowaadana dadka masaajidka soo galay mid quraan buu akhrisanayaa mid salaad buu tukanayaa qof maaragtana diin buu baranayaa qof dikri buu samaynayaa qof ilaahay buu baryayaa haddana mu'adinkii baa laleeyahay markaa aqiim aadaanka mu'adinka iska leh laakiin aqiimada imaamka ayaa iska leh buu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam dada markii la addimo إلا أقيمه قبل بعمل قدار وهي متوجنيا صلاة الجماعة مركا لتكنيا السلام وفرض ضدك إلي تكدان لما برار الجنب أباهدان وآذانك يا أقيم إقامك ويان لذلك غفل من آدم قمر والبوح أباهي هي عد حسوس سايو أباهي حسوس سا مركا وحانس حسوسنا وهر وحويان اللهنا أبو ريبين إن شاء الله إن إنكنا مرنا أنا هالمامن اذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفروا بإلهي إما حطنا حصوصتا أنا كنا وأن حصوصنا بإلهي إما حطنا بإلهي لإلهي وضم حيك إقرانا يا عابد يا شاكرين تنقضى وكافرين تهنغلين بإلهي لإلهي شاكر نقوم قبر شاكرة نقول هنقول قبر كافرة إلهي عاصلة هنقول مركا معرفة إلهي قرشد يسوع وحويان وواجب كأوه الرأي واجبات كاللينا صاري ويان لأن قرشد إلهي وحوى لبكه الرئيسة عبادة وحكه الرئيس إلهي قرشد يسا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ابن عباس الله رأى نقض سقي أبيه وحكم فسر آيات داس إلا اللي يعرفوني وقرشد ويان جني إنسي بإلهي نلايا ومان أبورا إلا هندان أبورت وحنو أبورت بإلهي لين يحنق يعابدان إنكرتان عبادة ومقصد كالينو أبوري ويان لكن إن أدعونا عنتا أو درحرتا أو دشا
ood noolaataa waa daruuriyaatulxayaat weeyaan. maqsadka laynoo abuuray adduunka laynoo keeno waa ilaahay cibaadadiisa. maqsadka cibaadada laga leeyahayna waa maxay? yaa ayuha annaasu icbuduu rabbakum alladii khalaqakum waaladiina min qablikum lacallakum tattaquun. ilaahay waxa uuna leeyahay dadow waa nafiir caama weeyaan oo ilaahay bashariyadoo dhan buu la hadlo wuxuu leeyahay icbuduu rabbakum rabbigiina caabuda alladii khalaqakum allahaasoo kii ah kii ini abuuray adduunka ini keenay ini samaystay waaladiina min qablikum iyo kuwii ninkii inaga horreeyay allihii samaystay iska lahaa caabuda lacallakum tattaquun inaad ilaahay ka cabsataan ayaad markaa mudan tihiina baa ilaahayna leeyahay. cibaadada waxaa looga jeedaa waa alla ka cabsi. waanada iyo wacdiga waxaa looga jeedaa waa alla ka cabsi. dacwadda waxaa looga jeedaa waa alla ka cabsi. xijaabka gabadha muslimadda la amray waxaa looga jeedaa waa alla ka cabsi. in qofku muslimku uu noqdo qof diin leh oo akhlaaq leh waxaa looga jeedaa waa alla ka cabsi. soonka waxaa looga jeedaa waa alla ka cabsi. zakada iyo sadaqada la bixin waxaa looga jeedaa waa alla ka cabsi. ilaahay cabsidiisa diinta islaamku halkay ka bilaabanto weeyaan waana halkay ku dhammaato weeyaan. nabigeenna calayhi salaatu wasalaam waa la weydiiyey dadka intooda badan ee jannada maxay ku galaan noo sheeg baa nabiga lagu yidhi. wuxuu yidhi taqwa allahi wa xusnu lkhuluq alla ka baqiyo dabiicadda wanaagsan buu nabigu yihi calayhi salaatu wasalaam. dadka intooda badan dadka jannada galaya intooda badan jannada waxay ku mutaystaan gelideeda waa alla ka baq. dadku inay ilaahay ka baqaan, ilaahay ka cabsadaan, ilaahay mar walba ay gartaan inuu arkaayo u maqlaayo, ilaahay inay gartaan inuu u jeedo iyo maaragtane dabiicadda wanaagsan. alla ka baqu waxa weeyaan xaqa ilaahay kugu lahaa waxa lagu gudaa waa alla ka cabsi. akhlaaqda wanaagsanna waxay kaa gudaysaa xuquuqda aadamiga kale ay kugu leeyihiin waxaa lagu gutaa waa akhlaaqda wanaagsan. waxaa kaloo nebiga la weydiiyey calayhi salaatu wasalaam dadka intooda badan naarta gelideeda maxay ku mutaystaan noo sheeg. markaa buu nebigu yidhi alfamu waalfarju carabka iyo cawrada buu nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam. dadka inta badan ee naarta galaya galidda naarta ay galeen waxay ku mutaysteen waa labadaas carabka iyo cawrada weeyaan. qofka muslimka waxaa la doonayaa markaa carabkiisana inuu ilaaliyo oo carabka maxaan ka ilaalinaynaa? xanta ayaan ka ilaalinaynaa. isku dirka dadka la isku dirayo waxa keena waa carabka weeyaan. cayda waxa keena waa carabka weeyaan. beentaan ka ilaalinaynaa. hadalka xun baan carabkeenna ka dhowranaynaa. kelimadda ilaahay kaa fogeynaysa intay calooshaada ku jirtaa way yar tahay laakiin mar hadday kaa soo baxda kelmaddaasi kugu noqoni mayso. cawradeennana waan dhowranaynaa. maxaan ka dhowranaynaa? xumaanta ayaan ka dhowranaynaayo qofka muuminka gabadha muuminadda waqul lilmuuminaati yaqdudna min absaarihin wayaxfadna furuujahunna walaa yubdiina ziinatahunna ilaa maa dahara minha. ilaahay baa qur-aanka ku sheegay sida iimaanka iyo tawxiidka laynoo amray, salaada iyo soonka iyo sakada laynoo faray ayaa gabadha muuminada ee muslimadda waxa loo faray inay jidhkeedana qarisa waa la faro. xijaabku waa amar sharciya weeyaan. inay gabadha muuminaddu indhaheega ilaashato oo deedna hadday indhaha ilaalisan ay culimmadu leeyihiin cawradeeduna waa u ilaalshami. maxaa yeelay qofka zinadiisu meeshay ka bilaabantaa waa aragga, waa maqalka, waa hadalka, waa gacanta, waa lugta zinadeedu waa u socod. qofku marka uu meel xun rabay inuu tago meel xumaanuu ku sii samaynayo waxa uu ku socdaa waa lugaha. idan lugaha meesha uu ku aaday waa kuwii uu ka zinaystay ka dhigan tahay oo lugtii buu ka zinaystay. gacanta zinadeedu waa qabashada. haddaad nin ajaaniba gacanta aad qabsato gacantaadii zinay ku dhacday bay ka dhigan tahay. haddii ragga hadalkooga aad dhegtaada u raariciso la xaasawdo hadalkaa ragga aad maqashay waa zina ayuu ka dhigan yahay, maqalkii zinada weeyaan. isha zinadeeduna waa aragga buu nebigu yidhi sal alla alay wasalam. carabka zinadiisuna waa haasaawaha iyo sheekada weeyaan. halkaa bay ka bilaabaysaa markaa xumaantu. deedna marka dambena xumaantii weyneed buu qofka ku dhacayaa. zinaduna waa min alkabaa'ir. binasi lqur'aan baa ilaahay ku yidhi waaladiina laa yadcuuna maca allahi ilaahan aakhara walaa yaqtuluuna annafsa alatii xarama allahu ila bilxaqi walaa yaznuun waman yafcal dalika yalqa ahaama yudaacaf laha alcadaabu yowma alqiyaamati waykhlud fiihi muhaanan baa ilaahay qur-aankiisa uu ku sheegay.
إلهي بالقرآن كيسا كل شيء تبارك وتعالى ويري ذاتك مؤمنين عباد الرحمن مركو إلهي سفيني أضومها الرحمن كا لما كلا سارين الرقية هوين بإليه لما كلا أنني الله الرحمن كا أضومه سمرك إلا شيء وكوه إلهي غيرك إلهي تنسى ميستان أنا بريين نبني آدن أنا أن قوينين إلا حق لقد لما وياني ولما وكوه الزناد أنا كل عيب إلهي صدح ما دام آيات كلية إلهي وكل شيء وحي علماء إليه وكبائر بإليه الزناد ومركز بركة نبينا عليه الصلاة والسلام وحاولوا شيئا ذاتك انتو ضبطن الجنة حبدي أي قلان وحيكون متيستين وأن لك بقي طبيعة ونكسن ذاتك انتو ضبطن النار حبدي كل عانا وحيكون متيستين وعورض يعرب أبو النبي عليه الصلاة والسلام سادرت الوعد قين وحو كبلا ما يا لك بق وحاول كل ما يا إلهي كعبصو نبي محمد عليه الصلاة والسلام باين يا إلهي كيري يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين إلى آخر الآية إلهي النبي محمد كيري يا أيها النبي كن أنظر النذر يوم اتق الله إلهي كبغ إلهي كيب نبي النبي يا أيها الناس اتقوا ربكم يا أيها الناس اتقوا ربكم يا أيها الناس اتقوا ربكم ما لبدن بقرانك إلهي كغور ربي حديثنا لو شيغو لا يري ددو اللهين أبو ركبغ وكعب صدا إن زلزلة الساعة شيء عظيم ساعة قرير كيبو وشيء وين با إلهي تبارك وتعالى وساعة قيامته يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد إلهي تبارك وتعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم ضدوا اللهين أبو ركبغ كبق إلهي كعبصو وإن إلهي كعبصون وحالك أنت مركز كليغا ميلا جوجت dadka dhaxdooda ilaahay inaad kaga cabsataa way fududahay laakiin kaliya markaad meel aad joogto ilaahay inaad ka cabsataa taas adag maxaa yeelay qofka muuminka taqwada leh waxa la gartaa khalwadiisa markuu kaligii yahay ayaa la gartaa sidoo ilaahay uga baqayo saacada qiyaamada soo socota quraanka ka waramo la yiri dhulka dhan baa gariiri oo malaa'ig baa ilaahay soo saari doona Israafiil suurto afuufaya makhluuqaadka samaawaadka ku nool ee araadinta intaas oo dhan dhammaan way wada dhiman way wada argagaxayaan waa maalinta tii ilmaha naaska muujinaysay ilmaheega maarataane way tuuri doontaa way halmaami doontaa dadka ayaa wada dhacdhacaya baa ilaahay yiri waxa loo maleynayaa sakaara inay yihiin sida kuwa sakraasan ay la dhacdhacayaan sakran maaha waxay la dhacdhacayaan baa ilaahay yiri عذابك إلهي بان ضرب إليه عذابك إلهي بان ضرب مالكاس فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا إلهي بان فكيف لا تتقون ورميانة كبقين بالليا ميانة إنه كعب سنين عدي إلهي نعمتي سمان تأذنك دوشيدا حداد إلهي أدين كرتان جريتانك إلهي حداد كرتان وشرعك إلهي إن القادتان أدسك ديدان وإلهي إن روح كان سناتان أدسك ديدان ميانا تكسي بقين بإلهي إن إليه معلم بصوصعتا إلمها يرانتا كل انت كل صغيري بانك قيام مرق صوابح تميه سيمد الله عطان شكوب دلك دونه السماء منفضر به سمد عبد الله عيسى ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عصيرا إلهي بل ويوم واذكر حسب النبي القيري مالين بصوصعة السمد وعيد الدلاعي دونتو يضع الأجديد سمد صوب وقوي دونتا ونزل الملائكة تنزيلا ملائكتنا ونسود جندنا الدجن أن هريئوك لأن الدويد اللي سود جنبا مالك ملائكة اللي سود جنيا سمدكم الملائكة كنوا ولا صودا عندنا وجاء ربك والملك صفا صفا وحل شيخ جبريل عليه السلام إني سكن بنك قيام اللجوجين دونو ملائكتي لحي أبوري يكون ذنب بأن السوق لنا معصومين تاها إلهي أن عاصيين النورانيين تاها بنك قيام اللكين دونا
وحلو سوجو جدنا ما ركتاني وحساب ويا الله. الملك يومئذ الحق للرحمن ملكك مالك إله الرحمن كإسكاله وقرطو يد قبطة الله الرحمن كإسكاله وأدون كرمون يسوي بقر عين ويهن لكن بني آدم حاريا كان يلا بقرطو يشيغن ما تأدون بكر كده بني آدم لا أنا كاوح سمعنا أنا كاوح عرقنا أنا كاوح مقلب إليه إلهي عز وجل ويهب ما منه ويلومين ولكن مالك أسوى مالكي ومالك إلهي ورندون لمن الملك اليوم ملكك ما أنت أيا إسكاله مرة بعد بكو علم دونا ملكك أيا إسكاله هذا مرصد حاد بكو علم دونا ملكك أيا إسكاله عد إلهي وجوابي سمجر تبو النبي عليه الصلاة والسلام إلهي كليك سقاسكو جوابي ورندونا لله الواحد القهار ملكك يا بقرطويدا ما أنت وحى إسكاله لله إلهي كليك أسقى إسكاله الله واحد كليك القهار وحيسن دومه سو أيسن دونين ككو قهري ككو قصبي الله هاسا ملكك ما أنت إسكاله ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا ومالنت الظالم كفرت انتو دحدك قنينكو على علي دون اورن دونو ويوان هوغي وانا خساره من طريق النبي محمد طريقا كسو يشبو اورن دونا halkaasuu ku calacali doonaa qof calacalka halkaasi ma soconayo maanta intaad nooshaa la rabaa inaad calaacashin nadaamadu maantay wax kuu tari jiiraayadu maantay wax kuu tari cabsida alla laga cabsadaa ta maanta ku anfacaysa banka qiyaama dadkoo dhan way wada cabsoonayaan laakiin cabsida banka qiyaama dadka la soo darsi doonta ma anfacaysa intooda badan waayo cabsidii adduunka ilaahay lagaga soo cabsaday unba aakhiro wax kuu tariyo ogow cabsidii ilaahay adduunka dusheeda aad kaga soo cabsootay unba aakhiro ku anfici intay doonay cabsidaasi ha leekaato banka qiyaamaha la iman dadku markay banka qiyaama yimaadaan waa wada mu'miniin fircoon baa iman iimaankiisu waa 100% abu jahl baa iman iimaankiisa iyo rumayntu maalintaas waa 100% waxli wixii mujrimiin adduunka soo maray iyo faraacina banka qiyaama markay yimaadaan waa wada mu'miniin ilaahay bay u dulloobeen dhammaantood wa khashacat al-aswaatu lir-rahmaan فلا تسمع إلا همسا بإلهي وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما مالك قيامها وحل وحي أدونك كبرك بنايا ودن وجه ماذا حساسه وقنودين أيام عندها قروا قادي كريم أيام ما لا أبحسن أيام مجرته وحيكو على أيام محا النبي طريقي سوسو مريواي دينتي اللي يقول يا ما راعب وغفل بوليا ما راعوا دينتي ما راعوا آية هذا سبب النزول كيغا عقبة ابن أبي معيط نكا لو نجري أيا وحوسمي علي وليمن عزمت بكو سمي مكة كدهيغا ومركي مكة لجوغي دينتو غريب كاي هاي مركا سوء ياري مركا دادكي شرفتا بدنا مقالة مكة حلقا لجوغينا شخصا وشرفتا بدنا النبي محمد نوح عليه الصلاة والسلام سوى النبي نبي آنن قارين ووقت نبوة النبي محمد سوى آنن قارين أيا حدنا ما ركتاني أيا لو رجل الصادق الأمين بل لو رجل الصادق الأمين رشاقه آمن كهذا الله يقاني marka maadaama uu yahay shakhsiga magaalada marka ugu qiimaha badan ugu akhlaaqda wanaagsan ee dadka oo dhan ay isku raaceen inuu yahay saadiq uu sheege aamin oo wixii loo dhibta loogu imanayo waa sifada laga doonayo dadka muslimiinta waa sifadaas sifaadkaas maanta inagu aad baan ugu liidanaa waayo dadkan aan dhex imanay haddaan akhlaaq wanaagsan oo kaliya aan tusin lahayn dhammaantood waxaa laga yaabaa inay akhlaaqda ku soo wada islaami lahaayeen maxaa yeelay risaaladan inteeda badan waxa uu nabigu ummadda ugu gaarsiiyay akhlaaqda wanaagsan ninkii gaalka ahaa markaa casuumadii nabigu u fidiyey nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam maadaama uu yahay
shakhsiga magaalada Maka ugu sharafta badan leh kama maqnaan kara markaa Maka casuumada kama maqnaan karo u yimiday waliba isagoo ballanka ilaalinaya ayuu nabigu dadka ka soo hormaro hor u yimiday baa leeyahay Abu Jahl alayhi la'na markuu soo galay majliskii uu arkay Muhammad oo istaago wuxuu yiri war maaniya Muhammad baan meel wada fadhiisin buu keenay miyaanad ogeyn Muhammad dagaalka naga dhaxeeya waa dhowrkii sane markaa u horeysay nabinimada uu nabigu sheegtay uu yiri nabi baan ee la yaaban yahay markaas Ubay ibn Khalaf baa kacay xaga kalena Abu Lahab baa ka kacay sanadiidu Quraysh ragii madaxa adkaa ee reer Quraysh ay wada kaceen waxay yiraahdeen war annaga Muhammad meel ma wada fadhiisanayne majliska isaga ka saar ama annaga kaaga baxayna markaas uu maya isaga ka saariya fadhiyo guud waliba sayid uga saari bay ku yiraahdeen sidaad uga saarayso waxa weeyaan dadka hortooda ku bahdilo waxaad ku tiraahdaa adaa iska yimid ayaa ku yeeray waliba qandufna ku tufay ku yiraahdeen sidii buu sameeyay markaa ilaa waa gaal isaguna nabigu calayhi salaatu wasalaam dana markaa nabigu uu ka baxay iskaga soo baxay isagoo murugoonaya waxa nabiga sida loogu dhibaateynayaa waa min ajli dacwa saa loo nabiga loogu dhibaateynayaa risaaladan uu ummadda u keenay baa waxaasoo dhiba u soo jiidaysa dana markaasaa qur-aankana ku soo degaya nabigeena isagoo qalbigiisa lagu qaboojinayo asbir calaa maa yaquuluun واهجرهم هجرا جميلا ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا آية لها النبي أنه وحي كسو دقيا مكة انتي لتشوغي كل بدبك دعوة النبي كسو قاعدة ayaa nabiga qalbigiisa Ilaahay ku qawoojinay walaalayaal markaas la yiri maanta hadduu aqalkiisa ka soo saaray maalin buu farta dhexda ka qaniino ku cala cali oran doona way maalinka ma nabi Maxamed aan reebto oo ayaka aan iska soo saaro halka warkooga aan ka qaadanaya man warka nabi Maxamed aan qaato maanta dhibaatada kuma dhacayna buu leeyahay ka cala cali doona walaalayaal أخواتي وأمهاتي وبناتي وحن إلهي إنك إلهي جل وعلا دين بوينسي دين تنمحل وصود جيه مركا إلا شاكتان مي دين إلا شاكتان ما شاك شيء إلهي مرة مد دين تشاكتان إلهي مدونا يا إلهي وحرة ده دين تكون مغمور روا إلهي ودين إسلام كو أكتو ده وحول بكالوينات سيدي هويني ذي لو رجل سليم رضي الله عنها وأنس بن مالك هو يدي نكيدي باكا دنتي مركا نين أبو طلحة لو رجل مركا سوشو قاصدي أبو طلحة مركا وقال ما إسلام وأنا مركي النبي عليه الصلاة والسلام ومدينة وسوه جرودي أي مدينة النبي قال له وسوه دوية من مكة دبويان markaa bay u tiri Abu Talha guur baad u socotaa miyaad islaamtay bay ku tiri horta markaas ma islaamina laakiin diin baan la hayno markaa bay ku tiri diintan leedahay daano mushrik baan oo diin baan haystaayo diin al-aaba wal ajdad ayaan iska haystaa toodii jaahiliga shirkiyaadkii bay ku markaa diin u aaminsanayeen carabta markaa bay ku tiri war nin gaal anigu u darayni maaye marba hadana diinta islaamka aanad soo galin waxa naga wada dhaxaye adarina kala kaxaabay ku jiro markaasuu sii jeestay ku tiri kaalay maxaad caabudaa geedkan gacantaada aad ku qoratay geedkan gacanta lagu qoray ama dhagaxan gacanta lagu qoray miyaanan ilaahay intood ka dhigatay aanad baryayn bay ku tiri سوكيل العرب عقل بيلين عقلك هلكو كاميرا كتر ما الحشوني ولو عاد قال لي سفيري بكتر ودعودي بسيس غور كيغي تيم اسكن دافتي رساله دي بكتبنيسا غبناس لان الجيل وحي هايين نبي الله محمد عليه الصلاه والسلام تربيتي
diintoo faraashay nabi maxamed ka qaateen iyo deedna markaasa kolkuu ka sii jeesto uu ka quustay bay ku tiri soo noqo in aslamta bay ku tiri waa xarfu shardiya shuruud bay sheegtay haddaad diinta islaamka aad soo geshid bay ku tiri hee meherba kaa dooni maayo bay ku tiri islaamnimada aad qiratay eed soo gasho ayaan meherkayga u qaadan bay ku tiri ninkaasi naar inuu ka badbaado oo diinta islaamka uu soo galo ayaa agteeda wax walba kala weyn iyada markaasuu waan iska islaamayaa buu ku yidhi ila kharashka o dhan baa laga dhaafay laga kharashka ugu daran moogta waan iska islaamayaa buu ka yidhi anas radia allaahu canhu ag joogay bay ku tiri kaxeeyo nebi maxamed u gey calayhi salaatu wasalaam markaasee nebiga u geysay waa loo geeyey rasuulkeenni sal alla alay wasalam nebiga hortiisuu markaa islaamnimadii ku soo qiray shahaadateynka markaabay aslam soo kaxay bay tiri anasow sooma islaaminaa iigu soo celi markaabay tiri haddaba anasoo kaale hooyada ninka ku ogo u guuri bay ku tiri abu talxa waa saxaabi macruufa siirada saxaabada ku qoran laakiin ninkaasi dariiqadu ku soo islaamay waa gabadhaay ugu islaamnimada ayay ka doorbidday meherkeedii waxay gabadhi u baahnayd waxay tihi anu bilaan meher ban ayaan kugu qaadan laakiin iisoo islaam bay ku tihi iisoo islaam diinta islaamka soo gal aakhira aanu wada soconnay mujtamaca noocaasa nebi maxamed baa soo tarbiyadeeyey calayhi salaatu wasalaam mujtamac dalkooga iyo diintooda marka loo doorbido diintay dooranayeen mujtamac naftooda iyo diintooda diintay dooranayeen ubadkooga iyo diintooda diintay dooranayeen mucamara radia allaahu canha wiilkeedii xabiib la odhan jiray buu nebigu risaalad u dhiibay waxuu u diray ninkii la odhan jiray musallimat alkadaab caadatanna dadka ergadee warqadaha boqorada u kala qaada lama dili jirin laakiin ninkaa xeerkaasoo jareenka uu jebiyey markuu warqaddii ka guddoomayna isaga xidhi buu yidhi jeelkaa lagu riday markaasuu u yimid oo wuxuu ku yidhi nebi maxamed inuu nebigii rasuul yahay ma rumayn markaa buu yidhi haa anna inaan nebigii rasuul ahay maadan rumayn markaa buu yidhi may beenaalaa tahay adigu uu xanaaqay ninkii gaalka ahaa wuxuu yidhi gacan ka gooye buu yidhi gacan baa laga gooye wuu ku ceshay haddana nebi maxamed nebinimadiisa ma rumaysay markaa buu yidhi haa anna inaan nebi rasuul ahay may rumaysay markaasuu yidhi may beenaalayaasha nebi maxamed uu noo sheegay beenaalo ka mida tahay buu ku yidhi ila nebigaa yidhi aniga 30 beenaalayaala iga dambayni doonta moogta daadna markaasaa sidii jidhkiisii kolba lug kolba gacan kolba dheg kol san kol afka looga goynayay buu dhintay baa layidhi oo qof bini aadam oo sidaa loo jarjaraayo oo risaalada iyo diinta inuu ka noqdo diida ka warrama laanna dhallinyar waxay ahaayeen hooyooyin waxaa soo saaray ilaahay tabaaraka wa tacaala ku xidhan dhallinyar waxay ahaayeen ilaahay ku xidhan oo lasoo tarbiyadeeyey bay ahaayeen markaasa hooyadii baa markaa loo sheegay oo la yidhi inankaygii waa la qoogooyey buu nebigu yidhi orda waxa weeye in lasoo tacsiyadeeyo bal warka gaarsiiya markii loo yimiday bay ku tiri lihaada alyawma ardactuhu inankayga maalinkan sida loo googooyey waa maalinkan ugu talagalay bay tiran u barbaariyey ee naaskaan u soo muujiyey tiri aniguna ilaahay agtiisana ajar ka helayaa bay ku tiri meel bay u jeedeen dadkaas jiil waxay soo saarayeen ilaahay ku xidhan oo nebigooda yaqaana calayhi salaatu wasalaam oo adduunyadan iyo aakhiro farqiga u dhaxeeya yaqaana bay soo saarayeen gabdhaheenna maanta innaka ka warrama zamankeenna ummu salama radia allaahu canha ninkeedii baa ka dhintay abi salama aad bay uga murugoto way naxday
وإن آدو باري أبوها ريركيس برقاب النبي قوي مدوع أم سلامي وأكو أركي هنا آدو قمر وقوتنين هذه لمشدي سي لكن دعاء آخر سبب وهي تسكداف دعاء آخر سوء اللهم أجرني في مصيبتي وابذلني خيرا منها دعاء النبي عليه الصلاة والسلام إلههم منك يا قاسي بمشدي ساس ومصيبه ثوابي أجر إله أدوك إيقمر هل كان نيجا أو كبحينا إله نين أساق كخير بدن بديل كيسي هل كيسي يسو قل بيته برقام النبي عليه الصلاة والسلام دعاء سوسية وشلق دقاقين ومسلمة وحيتري مركان دعاء النبي أن كبرنا ينيد أيان كيري ونك أجي نيكا كخير بدن أدوك جوجل أبو موسى بدلي ما بجرى هذا دعاء دي بس كأخرستي وهذا الكنبي قبل قالته عليه الصلاة والسلام لأن مركي عدد بحدين مدودي دمركو أي عدد بحدين أي نافتي قاعدين أي النبي محمد أبو صوت عليه الصلاة والسلام مركز عليه من نبي مركابة من نبي محمد بربعين ويقول صدق ها مسنين كانوا ربعين ويقولوا ما يسقى قربكم هذا مركابة يا رسول الله صدق عاد بالله ما تقول قادن أنا قوان كاد أوين هاي بيكون إسلام وين بانو عرضي ما بيقصوا بحدي عيالنا ما ركتاني والله هاي عيال كي قاسي هذا كمان عليس كل كين هذا طول الديني رسالة بعضهم بدقرسين الساي وغير رمضان تاني نقول إسلام إسكاه ناس بدنا مصير بدنا بنحي كتير مركب النبي قال صلى الله عليه وسلم مصير كا أو يكون قبار لكن إلهي وحكم بريء وكان خفيفيو دأنا أبو نبي يقول أديك ما هنا أنا بدأت ويقول تمديقني أيضا مركا اللحظة بي مدح الله شيء نبي يقول دأدي سنور يكون تبالغو قياسا المها كان أبو نبي يقول يري أرزاقات دودو أنا قدو شيء أمتها الله إلهي بأرزاقات هايبو إلهي بأرزاقات السنة إلهي بأرزاقات البحية وحيتري والله الدعاء دي نبي يقول مالك أو يبروان كفا إذا يستو ninkaygi markuu halka uu ka baxay shakhsigii adduunka u khayrka badnaaba ilaahay igu soo badilayo waa nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam marka rujuuc ila allah dhibaata in la soo daristo argagixi mayno quusani mayno qaylana ku dhifani mayno ducooyinkaas aan baranayna ducooyinkaas inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun inna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta وكل شيء عنده بأجل مصمى دعوين كابي النبي محمد أيوه نبرو صحابتي سأوبر جري إنك أنا مركي دباتنا لسو درستو وإنا نلعنو إنا لله وإنا إليه راجعون المهي رابك صغيري كصوغان المهي با صغيري ملائكتي المها الروح كسو قبتي وإلهي ويراي وكل هذا قبضتم ولد عبدي أرضون كيغا المهي سيما سو قبتين مرقاس إليه إنها قبضتم ثمرة فؤاده مريه قلبك ويان المهية روح دي مريه سيما كسو قبتين هاوا كسو قبني أدونك مركا محيولي با إلهي لي أدونك هو يدي محيتي المهنا به محيولي مركا المهي أتكسو قبتين مركا سيما ملايكت ورنا يا دي إله حقا أصو نقدينو والتي محيولي الحمد لله على كل حال إنا لله وإنا إليه راجعون يولي مرقاس إلهي ورنا يا ابن لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد أدون كيغاس علمه سمركا كسوق باتين دعاء أخرستي أقل جنة وقد السبا إلهي لي حي أقل كوحنا وقم بقعدرتان أقل كيف محضقة وقم بقعدر أقل كيف محضقة مركا إلهي تبارك وتعالى إنك إلهي أمها برواقضة هدان هلنا إلهي أن أمها نغنو dhibaata haddii la soo daristana waa inaan noqonnaa dad ilaahay u adkaysanaya dhibaatada oo sabraya oo adkaysanaya waayo maalintu ma daa'imaysa maalinta habeen baa ku xiga dhibaatadana dheef baa daba socota barwaaqada abaar baa daba socota dhalashadana dhimashada ayaa ku xigta faqrigana ghina ayaa daba socota bini aadamka mar way farxaan mar way murugoodaan sida toddobada maalmood maalin walba magaca gooniya ay u leedahay ayaa qofka bini aadamka dhowrkii sanaba
xaalad baa qofka bini aadamka la soo darsaysa siiradii saxaabada iyo saxaabiyaadka haddaad akhrisato waxaad garanaysaa marka xaalad walba saxaabadu siday ugaga baxeen ayaad markaa siirada saxaabada laga helaa marka dadkaas jiilkii nebi maxamed uu dhex joogay hadday haween ahaayeen iyo hadday rag ahaayeen jiilkaasaa la rabaa in lagu daydo maxaa yeele jiilka adduunka korkeeda ayagoo socdaa ilaahay raalli ka noqda adduunka dusheeda iyagoo socdaa ilaahay raalli ka noqda jiilkaas ridaha ilaahay jannada dhexdeeda lagu helaa laakiin saxaabada rasuulka rag iyo haweenba adduunka dusheeday ku heleen ridihii ilaahay adduunka dusheeda haweenkana si gaara diinta islaamka kor bay inii qaadeen kor meel hoose idinkoo yaalla inaga soo qaadeen meel sare inageysa diinta islaamka quraysh oo wuxuu nebi maxamed u dhex yimiday ninku laba hablood oo walaalaa uu wada guursan karo quraysh oo nebi maxamed wuxuu dhex yimiday qabaa'ilka qaarkood ninka ay aabbiyuhu islaan u ka dhinto islaan aan hooyadii ahayn uu isagu guursan karo nebi maxamed shareecadiisu waxay timiday zaman jaahiligii qabaa'il carbeed oo qaarkood gabadha hadday u dhalata ay ka naxaan noloshana ay ku duugaan marka dambe qur-aanka ilaahay ku sheegay waidaa bushira axaduhum bilunhaa ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم ما بشر به من سوء أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون أيمسكه على هون قرآنك إلى حين أوشي إنما بقول لا تهدي إلى لبا إلى هيري dadku iska qarin inuu ceeba uu isku arkaa miyuu haysan oo dulliya ihaanu ku haysan mise ciiddu gelin dhaqankaasay lahaayeen oo soo jireena quraysh shareecadda islaamka timido abuurka markii laga warramayay bini aadamka waxaa la hormariyey haweenka ragga laga hormariyey ugu يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ما إلى حين إلهي بقراك كل شيء أبورك مركي لهور مريي بني آدم كلا شيء إلهي عز وجل إسقوا قبلها كرء قالايا أيو إلهي يري هو دون إلهي هوين بو إلهي قبلو إلهي وهيبو ذا قبلو kuwa doonana ilaahay rag buu siiyaa wiilal buu siiyaa kuwa doona ilaahay labadaba waa iskugu daraa labadaba ilaahay waa iskugu daray wiilal iyo gabdhaba qaarna ilaahay waxau ka dhigaa bilaa ilma ilaahay ka dhigi meeshay doonaan ha tagaan ha raadsadaan asbaab kasta ha la yimaadaan xagga ilaahay hadduu qofkaasi qoran yahay inuusan dhalin dee ma dhalaayo qofkaas laanna ilaahay baa bixiyey shareecadda islaamka halkaasee ka bilowda inay dumarka kor u soo qaado maxaa la yidhi hadilina baa ilaahay yidhi awlaadiin hallaynina walaa taqtuluu awlaadakum khashyata imlaaqin naxnu narzuquhum wa iyaakum ina qatlahum kaana khat'an kabiira hallaynina baa ilaahay yidhi maxaa u leynaysaa arsaaqadda ma innagaa siinaya annaka arsaaqadda siinayna baa ilaahay yidhi hallayn hadilin ilma muslima haddaad qaado dhul gaal aad ku dhex tuurto waa dishe ogow ilma yar haddaad diintiisa bari weydo oo qur-aanka iyo sunnada nebiga bari weydo oo fanni dad kale ay culum inooga dhigeen aad ilmahaaga aad madaxa u geliso noloshaad ku dishe ogow ilmahaaga adaa dilay mabda'iyan yar waa dishe ilmahaas marka shareecadda islaamku waxay u timiday xuquuqda dadku ay duugeen inay soo saarto
حقوق من عال جاريتين حتى تبلغا أنا وهو كهاتين في الجنة النبي عليه الصلاة والسلام نك لما حبلود أيون دلتي لما ذا حبلود كوريي النبي يقول يا كوريي كرسين تودنا وناجي إلى أي كقان قاريان أنا ينك أي جنة صدا سان سكون هاي النبي يقول سيدي صدا لما ذا فرو أفر حبلود نك إلى هاي وسيي النبي يقول أيو شفاعان أفر حبلود نك إلى هاي وسيي كرسيي تربية دودا وناجيي أوغوريي نارتي قاشان وقال نقضان برسولكم نبي يقول رقم الشيء قبله شيء إن صحابي أياي صدح نكا حيستنا صدح دون والله مدبو نكا الله حبلود إلى هاي سينا الله دون والله مدبو نبي يقول نكا قبر كلي إلى هاي سينا قبر دون والله مدبو رسولكم عليه الصلاة والسلام رقم الله سوق قادنا وين ما أنت الله شيء يا الله سوق عائشة رضي الله عنها واتيتري قبر مسكينة لا يتي مدى الله حبلود يرير وضتا waxay iga dalabtay cunto inaan siiyo quudiyo saddex timir oo aqalka taalay baan siiyay mid marka uu kala siisay midii afraad ilaha cuntid ayay yiraahdeen midii saddexaad cuntid iyadu istiri ayay yiraahdeen hooyo xabadan anaka nasiib markaa uu kala dalaacisay dadna way kala siisay Aisha radiyallahu anha waxay tiri fa ajabani sha'nuha hooyada siday gabdhaheeda ugu naxariisatay حبدي ربط إني عنت أيك ودي سيما آدي عجب جلسي مركب النبي قلنا أشيك عليه الصلاة والسلام مركب النبي يقول ها أنت أسا جنة إلهي واجبية ورسولك حجة الوداع مركب النبي يقول دردار ما يجي حق الرجع كما دردار منها حق ضمرك النبي يقول كدردار حجري استوصوا بالنساء خيرا ورهوي النبي يقول يا هي ضمرك خير قدر دارما والنبي يقول خير قدر دارما خير أقل الله إني يدح فرديان والنبي يقول يا مالك أنا أبيح مايان إنك ينسويان أحمينين أبو النبي يقول هذا الحنة كائل علي أبو يري الله أكبر ودبريا نرش أبو النبي يقول ودبريا ودبعيا قارورة النبي يقول نقعب قارورة دواد ركتين ولا شقر لها إني كان نقايا قانين مال سراد دقتان عيال كسينا وقارين وجبين وأنا تقدف في عاني يد المرتين علوس أقل كيمين ساهم ولا سال صورة دعية نبي محمد صلى الله عليه وسلم قارورة نقعب قارورة سدا قارورة دائنا جبت الله وقال دورة يا أبو النبي يقول يا ورد مركوا قارورة إنه دورة برسولكم لفت أبو النبي يقول نقعب لفت الله عوى يا أبو هذا هذا الله عكبي ويجب دون وافرتاك ابو نبي تديه كل السعد وياه هو كانت هو خير كبدن واتني كذا مركو ايغا كفر حسا مركو امرنا امركي سقادته ايشا ووحي معروفه ادو كم مقنادنا يدنا اسلالين بو نبي يري waxau nikeedu u dhibtana ilaalin rasuulku وبير بقران كل بير باتين بير نساؤكم حرث لكم دمركم waxay leeyihiin beertiini maxaa laga beeranayaa beerta nigu markuu dhul qaato uu dhaado dhulka aniga la markuu yiraahdo geeda wuxuu ka beeranayaa wuxuu jecel yahay geed kasta oo midho la cuno leh inuu beerta uga soo baxo laakiin markuu hore carradu waa inay fiican tahay biyo waa inay haysato beer baa la inaga cabaray beer maxaa la inaga beeranayaa awlaadii baa la inaga beerayaa inaka beertu hadday fiican tahay oo dhulkaasi uu fiican yahay wixii lagu shineeyayba waa soo baxayaan markiiba laakiin dhulku hadduu xun yahay la beeranayo waxba ka soo bixi maayaan lidaalika beer baa la inaga cabaray beer inaad tihiin ayaad maxaad la inaga beeranayaa waa dhashana ininka tarbiyadeeyo ogaada dhaqanka hooyada ilmuhu inta badan uu ka arko ayuu ilmuhu yeeshaa baa la yidhi leanna luqadan aan ku hadalay af soomaaliga lama yidhahdo waa luqadii aabbaha laakiin maxaa la yidhahdaa waa luqadii hooyada maxaa luqadii aabba loo odhan waayey
لأن أبوه المها لما تشوفه أنت بدل المها نكاحي marka waxaan nagula dardaarmaynaa inaad aqaladiina sidaad aqalada u joogtaan aqalada joogidaad joogtaan xikmad baa ku jirta waqarna fii buyuutikunna waa amar ilaahay gabadhu amarka markay qaadatay guri joog noqoto ajar baa u socda gabadhu xijaabka markay soo xidhatay bannaanka u soo baxdo intaa xijaabka ay wadato ajar unbaa u soconaya guriga joog guriga maxaad ka qaban markaa guriga waxaad ka soo saaraysaa mujtamac wanaagsan mujtamac wanaagsan dhal ilaahay taqaana oo aakhirada taqaana oo diin taqaana oo akhlaaq wanaagsan leh ayaa la rabaa guriga inaad ka soo saarto laakiin macallinkii hadduu dugsiga ka baxa ka warrama macallinkii baa ka baxay dugsiga ciyaalkii markaa maxay samaynayaan yaryarkii yaryar dugsiga dhan way jajabinayaan hooyadu waa dugsi aqalkaabaa ilaahay joogkaa idhi aqalkaada joog gabadha yar ee koraysana cilmiga ugu qiimo badan ee la bara baa la yidhi bacda kitaab illaahi waxaa la yidhi waa maxay iyo sunnaha nebiga dabadii waa guriga sida ubadka loo tarbiyadeeyo raggana ninkana loo raalligeliyo cilmiga ugu manfacada badan ee gabadh la bari lahaa waa cilmiga mujtamac wanaagsan lagu soo saari lahaa innaga zamankeennan maanta wax walba way isbedileen aqalladii way ka soo baxeen badana لأن مركا قلدي أنت بدنا هوينك كسر بحين مجتمعي مركا أودمي ما أنت مركا ورشدوا ما الكلية إلا قرة كيف يكون فايدة بدن تحت سما ورشدك ورما هذه مقالة أن نقول ركبه والله قد قاضوا هذا مقالة لك لا لقيه والله فرفروا هذا توكل لقيه والله فرفروا هذا توكل لقيه كورما سين نقول مقالة ورشدس وكلا بعد نيسا قبضوا ورشد واحد يكون في عنده ميل كلية نقول ركبه بس لأن إنتاج وحبي صار يسوي ورشد قبض مؤمنات الصالحة أنا قبض مؤمنات الله الله يا وين نقطة قبض قريقة جوبتا بحي قريقة كسر صار يسوي إنتاج في عن قبض أسطورا حبل أسطورا ويل التدين طبيعة وناس كم وقت قريقة كسر به لكن ورشدي هذه ماشي لو قلت لك لك أنا غاق بكورنا يدنا ويبابي ويضيعني مجتمعون وينقض ضيعني ما أنت سأدرت يد ولا ليال يعني خير الكلام ما قل ودل هذا الوحى خير بدن وهذا الكذابان المرتدل عام كنا نقول دردار ما يا إلهي هنقع عبسنا ودينتنا إسلام كهاي نقم نلشنا دينتها كم وقت ونقح والما ماشي إلا نجيب قيمة كل يهي الله سوى صدح درجة صدح نقح ما قبطه والله شو صدح بيكوتها أنت يصدح عرور يا ضمر يا الرق نقح رسمي أبالي أن دقاقي من وحق نبأ يكون رجيان وهوينك وياه نيو وناكسن بعد أركتي قبر وناكسن بعد كدم بيس علم وناكسن بعد أركتي ويا وناكسن بعد كدم بيس الدنيا متاع والنبي ولا خير متاعها مرأة صالح قبل ولا سمر رشد اللغة عبرين تايم بارك الله فيكم